ganacsiga lagama fiiriya hantida uu hayo kaliya waxa laga fiiriyaa socod kaasha in mar walba gacanta uu ku hayo si uunan u noqonin bankrupt waxa loo yaqaano oo xisaabtii kugu taagnayd iska bixin weysid waxa laga yaabaa in ay noqoto ganacsigaadi uu istaago oo fariisto adoo hanti weyn leh marka cash flow idan waa mid la ilaaliyo marka maxay ku kala duwan yihiin objective-kay ku kala duwan yihiin marka ugu horeysa finance iyo accounting objective-ka waxa weeyaan historical wixii dhacay ayaad ma aragtay maxaan ku dahay hadafku waa wixii dhacay inaan ogaano maxaa dhacay ilaa iyo maanta aan taagannahay taariikh sooyaal weeyaan waa wax aan gadaal u eegayno waa legal requirement-ga markaan fiirino way ku kala duwan yihiin legal accountancy waa legally required ma aragtay financial statements in la diyaariyo adduunka caalami weeyaan waa wax compulsory ah qasab ah si daneeyayaasha loola socodsiiyo daneeyayaashu way badan yihiin إن شاء الله stakeholders ودول مرة دونا لكن دنيال وحال إذا عيد كستو سامينيسو كو أنا ذا جناحسي عن قارينه عيد كستو سامينيسو ما هكليم الكيله عيد كستو سامينيسو internal stakeholders أجرو external stakeholders أجرو يدد حريري إنك قد حيانو ما أعرف relationship إنك قد حيانو connected stakeholders اللي هذا أياجرو أوكي وحي كلا دوينهين standard caalami ah jira accountancy-ga oo aadan dhinacna ugu beeri karin oo meel walba haddaad joogtid America iyo haddaad joogtid ma aragtay Soomaaliya iyo haddaad joogtid Mongolia isku mid ay tahay standard weeyaan caalami ah haddaad barato accountancy meel allaala meeshaad caalamka tagto waa standard waa kaga shaqaysan kartaa haddii aad standardkii adiga waxaad ku soo baratay marka waxa kaloo jiro the risk ama waxa loo yaqaano khatarta ama aafooyinka habka ay u eegaan way ku kala duwan yihiin accountancy-ga aafooyinka ugu weyn oo eegaan waxay tahay material misstatement waxa loo yaqaan in financial statements ama bayaanada maaliyadeed in qalad uu ka dhaco taas ay aad u eegaan khatar ilaalintooda waxay ku wajahan tahay risk of material misstatement ayay ku aadan tahay hagaag finance-ga marka muxuu uga duwan yahay finance-ga meesha uu accountancy-ga rules based uu ka yahay kani waa analysis based waxa weeyaan falaaqayn caadi ahaan falaaqayntaasoo mustaqbalka yahay hadafkeedu objective-ka finance-ga muxuu yahay waa future orientated finance is a future oriented forward looking ayaa la yidhahdaa waxa weeyaan waxay eegtaa diiradda wax lagu eego accountancy-ga dib wax u eegaa wixii aan soo dhaafnay finance-gana waxa soo socda u eegaa caadi ahaan inkastoo mustaqbalka la mala awaali karin laakiin skill xirfad iyadoo la isticmaalayo ayaa waxaa lagu odorosaa ama lagu qiyaasaa waxyaabaha aan ka faa'iideysan karno ee fursadaha dhaqaale ee dibadda ka jiro iyo waxyaabaha caqabadaha inagu noqon kara ee aan inaan ka feejignaano loo baahan yahay marka caadi ahaan intee shaqooyinkan ma aragtay maxaan ku dhahaa ay waafaqsan yihiin sida baananka iyo corporationska waaweyn ayaa finance-ga aad iyo aad u daneeya sababtoo ah waxyaabaha ama ma aragtay assetskooda ayaa marka ugu horeysaba ah risky waa khatartooda aad u badan ilaan waxay ka shaqeynayaan waxa loo yaqaano derivatives sida u taqaanaan ama future markets waxa weeyaan waxay ka shaqeynayaan wax ku dhisan qiyaas mustaqbal wax dhici doona maadaama wixii ay yihiin wax dhici doona la saadaalinayo waxay u baahan tahay skill ama xirfad qaas ah ayay u baahan tahay iyo waxa attention to details waxa la yiraahdo in qofkaasi uu yahay qof aad iyo aad dhacdooyinka si aad iyo aad u miisaaman u baari kara oo go'aan ka gaari kara ama soo saari kara bayaanka ama bayaano u soo saari kara dadka go'aanada ka gaaraya shirkadda ee u sheegi kara dhacdooyinkan waxay ila muuqataa oo daras ahaan sidan inay wax u dhici doonaan ee course of action-kan ama go'aanka noocan aan ka qaadano marka mar walba waxaan leenahay future orientated weeyaan marka maxay marka fiirinayaan ama analyze garaynayaan financial statements-kay ka bilaabayaan hoosh meesha accountancy-ga uu zero ka soo bilaabay oo record sameeyey oo maintenance sameeyey oo maaragtay reporting soo sameeyey iyagu hooshooda dhanba waxay ka bilaabataa after the production of the financial statements financial statements-ka marka la soo saaro kadib ayay bilaabaan analysis waxay fiiriyaan waxyaabaha loo yaqaano assets liabilities capital
ayay fiiriyaan ee waxay ka soo dhex saaraan ratios ama ma aragtay waxay ka soo dhex saaraan xiriirka u dhaxeeyo relationship between A and B iyo sida ay noqon karto marka starting point waxa waaye financial statements potential risk of future waa saan hore u sheegnay accountancy waxa waaye potential risk of financial material misstatement ay ahayd halkanna waxa weeyaan risk of the future waa odoros probabilities iyo standard deviation iyo statistics ayaa lagu shaqeeyaa si loo ogaado mustaqbalka waxa macquulka ah inay dhacaan okay qasab ma aha marka finance department inkastoo ay muhiim tahay sida legally required uu yahay accountancy-ga ma aha waa they have to add value qiimo waa inay kusoo kordhiyaan ganacsiga haddaynan qiimo soo kordhinaynin de ma aragtay waa la casilayaa ma aragtay financiga way sahlan tahay qofka financiga waa inuu shaqadiisii uu ka miro dhaliyo oo tuso waxa uu soo ziyaadinayo faa'iidada uu soo ziyaadinayo marka mar walbaba marka shayga hadduu qasab ahayn waa in qofka inuu baahidi la tuso inay jirto okay organizational structure ahaan haddaan u fiirina halkay fariistaan marka organizationka caadi ahaan board of directors oo CEO-ga uu u sareeyo ama chairmanka iyo CEO-ga aan dhahne waa la kala saaraa caadi ahaan labadaas role oo u sareeyo waxaa hoos fariisanaya department finance director-kii hoos fariisanaya finance director-kii marketing director-kii operation director-kii iyo directorro badan logistics-a laga yaabaa ma aragtay maxaan ku dahay human resource-a laga yaabaa directors-kii adiga gole agaasimayaashii ayaa hoos fariisanayo golaha sare gudoomiyaha waxaa hoos fariisanaya ama chief executive officer-ka waa hogaamiyaha shirkadda weeyaan ee shaqo howl ahaan hogaaminaya shirkadaas waxaa hoos fariisanayo finance director-ka marketing director-ka and operations director laakiin accountancy department waxay hoos imaanaysaa finance-ka finance director-kay hoos imaanaysaa sidoo kale finance department-gana meeshay ku kala baxayaan marka waa muhiim inaan ogaano in laba discipline oo hoos imaanaysa finance director-ka inuu yahay laakiin waxaa meesha ka marnayn finance director-ka qudhiisu waa inuu labadan skill ama labadan xirfadoodba u garanayo haddii kale dadkan bayaanada ay u keenayaan ama qorshooyinka ay u keenayaan waxba ma aragtay uga suurtagalayaan CEO-ga sidoo kale caadi ahaan CEO kastoo adduunka haddaad baartaan accountancy iyo finance background uu leeyahay CEO kasta hogaamiye kasta waa inuu cilmiga xisaabaadka iyo cilmiga maaliyadda waa inuu garanayo si uu ula jaan qaado reportyadan ay keenayaan department of accountancy iyo department of finance opportunities marka accountancy-gii iyo finance-kii opportunities-ka ka jiraan fiirinayna accountancy waxaa hoos imanayaan dhahnay bookkeeping haddaad doonayso inaad noqoto bookkeeper this is for you revenue and expenses inaad ka shaqayso daarabta dakhliga iyo maaragtay kharashaadka waa qaybtaadii financial reporting waxa la yidhaahdo ama bayaanada ama warbixinta maaliyadeed inaad maaragtay soo saarto haddaad doonaysid this is your field auditing haddaad doonaysid sidoo kale hanti dhowrka risk management ama waxa la yidhaahdo maareynta aafooyinka ama khatar ilaalinta waxa loo yaqaano this is your department accountancy sababtoo waxaan dhan waa waxay eegayaan wixii lasoo dhaafay on the other hand finance marka funding the business horta in hanti loo helo mashaariicda inaan fulino aan doonayno waa inaan u helnaa ruux hantidaasi meeshii laga helayay iyo nuucii loo helayay yaqaano funding marka qasnada qofka kuu fadhiya ma aragtay mar walbaba ogaanayo meesha aad ka helaysid funding waa finance director finance ma aragtay department weeyaan funding the business ayay shaqadoodu tahay raising capital okay fundskii wixii loo baahnaa waa ogaanay halkeen ka keenaynaa waa inaan ogaano suuqyada aan waxaas ka bani aadankuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashyoogteed yuu kaga bogtee bani aadankuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashyoogteed yuu kaga bogtee